إمامي ورسول وسيدي وإمامي ليس يدري قدر الحبيب سوى الله فماذا يقول الفصحاء. xafladan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaana lagu maamuusayay arday dhammaysteen barashada Qur'aanka Kariimka iyo aasaaska funuunta kala duwan ee shareecada Islaamka ayaa lagu qabtay madrasada Xayaatudiin oo ku taala xaafadda Ceelsilig degmada Hilwaa ee magaalada tan Muqdisho. madrasada Xayaatudiin ayaa ah madraso dharar iyo habeen u taagan fidinta diinta Islaamka waxaana la aasaasay 21 Diseembar sanadii 2019. dufcadani ayaana ah dufcadii labaad ee ka qalin jabinaysa madrasada waxaana xafladani ka soo qayb galeen mashaayikh, macallimiin, waalidiin iyo marti sharaf kala duwan. ugu horeyn waxaa lagu daafuray kalaamka Alle. بشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. daahfurka kadib macallin Nuur Macallin Cumar oo ah maamulaha madrasada ayaa su'aalo ka weydiiyay ardayda waxyaabihii ay ka soo barteen madrasada. maxamed su'aasha lagu weydiinayaa waxay tahay xuruufta idhaarka imisa waaye maxayse kala yihiin ayagoo halhalan oo tiri marka horena ijmaal ahaan noogu sheeg. xuruufta idhaartu waa 6: alhamsatu walhaa walcayn walxaa walghayn walqaaf. maxamed su'aasha labaad aan ku weydiinayaa waxay tahay xuruufta idqaamka imisa waaye maxaana lagu jamciyaa. xuruufta idqaamka waa 6 waxaa lagu jamciyaa yarmaluuna. luul ibraahim cabdullaahi waxaan ku weydiinayaa su'aal ku saabsan tajwiidka oo ah asha qamariyada maxaa lagu jamciyaa inaad noo akhriso beydka lagu jamciyo laamta la yiraahdo laamul qamariya. laamta qamariyada waxaa lagu jamciyaa qabla 4 ma'a 10 qud ilma min ibri xajjaka wa qaf'a qiimahu. maxaa lagu jamciyaa laamta la yiraahdo laamu shamsiya ama al shamsiya maxaa lagu jamciyaa beydka lagu jamciyo inaad noo akhriso ayaan ka rabnaa. laamta shamsiyada waxaa lagu jamciyaa tibsuma sir rahmaan tafuz tiftaa ni'am dacsuwa danni zuur sharifan lilkarim. su'aal waxaan kaloo ku weydiinayaa su'aasha ah awlaadii nabigeena salawaatullaahi wasalaamu calayh imise ay ahaayeen magacyadoodana inaad noo sheegto tirada guud intay ahaayeen iyo magacyadooda inaad noo sheegto. awlaada nabiga waxay ahaayeen 7 waaye qaasim cabdullaahi ibraahim faadimo ruqiya umul kalsuum zaynab. sihaam cabdulqaadir xasan waxaan ku weydiinayaa su'aal aad u weyn oo islaamka dhexdiisa ku weyn taasoo ah arkaanta islaamka. أركان الإسلام 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الصدقة وصوم رمضان حج البيت من استطاع إليه السبيل. محمد أمين عبد القادر محمد waxaan ku weydiinayaa xuruuful ikhfaa imisa waaye waxaad kaloo noo sheegaysaa beydka lagu jamciyo xuruuftaas. حروف الإخفاء وعشان سفداتنا كم جاد شخص قد سماد ذني مسجد فيه قد قضى لما يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد على النظم للمريد في النور
ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعدهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. sidoo kale mashaayikhdii ka soo qayb galeen xafladda ayaa goobta muxaadarooyin qiimo leh ka jeediyeen. nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu waxa idinkugu khayr badan qofka quraanka bartay dadkana sii baray qofka quraanka bartay ee xifdiyay ee inuu dadka baro shaqo ka dhigtay kaasa dadka ugu khayr badan saadiqul masduuq ayaa dhahay warkaas nabi maxamed ayaa taskiyay wax dad kale iska dhahneen maaha oo qiyaaseen ma aha qof aan been sheegin oo ma yandiqu 'anil hawa ayaa dhahay waxaan ugu khayr badan waxaan aaminsanahay oo ilaahayna ugu dhawaanayna macallimiintuna inaga khayr badan yihiin maadaama kalaamka ilaahay ee dadka barayaan sidaas ayaan aaminsanahay nin sheekha oo taabici inuu ahay ayaan u malaynayaa Abu Cabdiraxmaan Sulami la dhihi jiray wuxuu yiri in badan ayuu quraanka kariimka dhigay isagoo madaxiisa cadaaday tintii oo dugsi dhex fadhiya markaas la yiri waa gabowdo waa duqooday hayta markaas uu yiri حديث كان تأخري خيركم من تعلم القرآن وعلمه وحوي هذا الذي أقعدني في هذا المجلس ماشي وحي فديسي وحديث كانوا خيركم أن رواه لنا سجاجر مركب ماشي أنا وحي فديسي ولي كرنقن كان كرنق مايو حديث كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم اسكما فديور ماشي عليه أدو قفك النوع عصا مركب هداتي وآخرنا كاقفي عن الدوينة كاقفي عن حوالي واسك حمالي وقدم بيا xoogay takhalluf hadaad u aragto gabar oo tiraad horumar ma leh waxa loo baahan yahay iimaankeenu inuu shaqeeyo oo aan ogaano dadka noocaas oo inay dambeeyaan la moodo waa dadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa oo qaadimin oo dhigtay waa dad wadiifada anaga dhan laga rabay haayo oo inaan heri habeen u duceeyno mudan وادتك النبي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما إلهي كتابك وحك كوريا لي ضد ويضع به آخرين هو كلنا وأتكد جيهوس أي أقولي ضدك إلهي قرآنك كوريا لي وادتك قرآنك وقد ما سدان وكله ضدك أن اللي يرى قرآنك برناي يمعلم كود يأهل كود ذلك وادتك إلهي كتابك إلهي وكشر في قيامها كتابك وشفيع دور وهو إرجي دور ويضع به آخرين كوا كلنا قرآنك أنت برتين أي دور كود كتورة كم عمل فلن ما أخرين ضد ما برين هل مال المكلا فرين وما فيه بما يسندهن إلهي كواس نجمع هذا قرآنك مر أنت لو بري أدمال إسكالك هل مال بقى كتابك إلهي آدم فيرينين تاسوا مصيبة ولا ليه إن بدن حاجة وحاجرته وحلي هذا كتاب سدح شيء واحد هو ضيعين علماء سدح شيء وغريب وانا ضيعين كتاب غوريالا غوريغاسنا ان قرانك لو اخر كتاب ميل اسكيالا meeshaas ku caariyeystay oo boor iyo habaas korka ka foolay lama soo qaado buugaagta iskoolka lagu aadmaano waa la jafa boorsa loo gelinayaa waxa loo sameeyay qaanad gooni ah oo nadiif ah laakiin quraankii kitaabka jaamaca meel iska saaran yahay maalinta xoogaa cidu ay quraan saar qabto oo culumada ay soo wacaan waxa leeyahay kitaabada loo soo qabto culumada inta la jafjafaa markaas quraanka laga akhriyo way dhacdaa mararka qaar waa musiibo وأن يابل كتاب كاسو ضيعين وحكلو ضيعان كتاب قف أو حفظيه أو قلبي سكجرة لكن أو سنة آخرين وسكسر على قرآن كهل مركون واقع ماي وأنا لبري أيضا القرآن كاسي قلبي سو ضيعين قرآن كقف إنه كله مال روا إنه أخرستو كعبادة استال روا ولفظي سنة آخرية معنيه سنة أو كله مال روا ما هنا قرآن كوا حفظيه إسبارنا وسكت يا جنة تتكسر روانو حمانية سر روانو عاية أفلقادة waxaan rabaa sheegaya quraankiina waa xifsanahay taas ayadana musiibo kale waa quraanku waa kugu dhax dayacay qalbigaaga ku dayacay
waxaa kaloo dayacana la yidhi nin saalixa oo caabid ah ama nin sheekha oo caalima oo dad faasiqiina isaga dhex nool ama jaahiliin ah sharafta iyo qiimaha uu leeyahay ma yaqaanin wasaga waxay rabaan isaga kor samaynaya ninka caalimka ahay dadkii juhalada ahay sharafta iyo qiimaha uu leeyahay ma oga ixtiraami maaya qiimay maaya ninka saalixa ah oo caabidka ah kuwa faasiqiinta ah oo faajiriinta iska dambaabaya ma oga qiimaha uu ku fadhiyo meesha waxaa laga yaabaa musiibo badan oo kusoo degi lahayd asaga dartii in looga leexiyo looga sarfiyo ma oga markaas iska caayayaan hadday rabaan ayaguna waa dayacan yihiin dadkaas culimmada ah marka waxaan rabnaa kitaabkii inuusan dayacmin qur-aankii ardada la baray in sidii loo sii daba taagnaado uusan dayacmin oo la akhriyo oo qur-aanka ilaahay la sharfo oo meel kore la saaro oo aad qalbigaaga midka ku jirana mar walba aad akhridood ku dhaqanto midka qur-aanka ah oo kitaabka aad leedahana xataa kutubada markaad meel gashanaysid asaga inaad ugu kormarin dhanka kale Sheekh Daahir Xuseen oo ku hadlayay afka waalidiinta ayaa goobta ka jeediyay kelimo ku aadan munaasabada marka mahad guud Allah ya askara subhanahu wa ta'ala rasuulkaana keenay madrasada qaaliga xayaa rasuulkaana keenay haddana quraanka ilaahay qayb kama ardada qayb kamid xifdina hayaan ee qatimaan rasuulkaana keenay Allah asaa mahad guud u sugnaatay mahad labaadana waxa iska leh muallimiintii ku dadaalay oo hogaamiyo iyo macallinkan macallin ilaahay ha ku ahsan jaza Allah ku amal mariyo macallimiinta sada mahad guud u sugnaatay mahad waxaadna u sugnaatay waalidiinta ku soo dadaalay oo intaas u adkeysanayay canugaas oo quraanka u xifdi lahaa iyo soo u qatina ku dadaalay ayaa mahad u sugnaatay wax lama baran karo wax la yiraahdo saddex qof haddii aan la helin waxbarasho ma sugnaan karto qof khayrka dadka bara iyo qofkaas qof u kaalmeeya iyo qof jecel labadaas qof afraad ha noqon baa la yiraahdaa marka waxa weeye quraanka haddaan la soo kaalmeynaynin oo canuga aan dugsiga loo soo dirayn oo macallinka aan lagu hubsanaynin macallinkan wax ma bari karo walaalayaal marka Allah waalidiintaas amaad u sugnaatay waxa kale mahad u sugnaatay dadka ka soo qayb galay waalidiinta oo xafladda ka soo qayb galay iyo kuwa maqan dhamaantood oo aan ka soo qayb galin inta mahad baan u jeedinaynaa mahad u sugnaato ugu dambeyntii maamulaha madrasada ayaa u mahad celiyay mashaayikhda iyo dhammaan ka soo qayb galayaasha xafladda waxaan mahad celinaynaa marti sharafka ka kooban waalidiinta mashaayikhda muallimiinta deriska dhammaan ayagana waxaan leenahay imaatinka aad imaateen mahad idinka gaarto annaga qofka hadduu wanaag kuu sameeyo loo beegtoomi karo in loo duceeyo maahane marka annaga waa idiin ducaynaynaa imaatinka aad imaateen sharaf ayay noo tahay leanna majliska dhan waxa uu ku nuurayahay waa imaatinka macallimka uu joogo ardadu ay joogto mashaayikhdu ay joogto waalidiintu ay joogto haddaadna adinku imaan lahayn majliska ma nuureen marka waxaan idin leenahay fadhiga iyo majliska iyo waxbarashadii dhammaan ayaad nala nuuriseen ee Allah idin nuuriyo Shaafici Maxamuud Xasan Xayaat Islaam Media magaalada Muqdisho